Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A political issue of Somalia. A political issue arrimaha siyaasadda of Somalia ee Soomaaliya. Isma khalwacan. Are you a politician? Are you a politician? Adiga siyaasi miyaa tahay? Are you a politician? Adigu siyaasi miyaa tahay? Biya wuxuu ku jawaabay indeed xaqiiqadii I am not a politician. Anigu ma ihi siyaasi ma ihi. But laakin I am seldom do so like waxyar ayaan xogaha ayaan ahaywa xogayar maradif waxyar ayaan ahaywa well and nice waan u wanaagsan well and nice waan u wanaagsan who is a needy politician yaa u baahan siyaasi loo baahan yahay waa kuma who is a need waa kuma kan loo baahan yahay politician siyaasiga loo baahan yahay ee maanta wadanka loo baahan yahay waa kuma a need politician siyaasiga loo baahan yahay is a person waa qof who service kaas uu adeega for his people dadkiisa uu adeega wuxuu uu adeega honestly si daacad ah lillahi ah and is loyal to them oo dadkan ay daacad u yihiin siyaasiga loo baahan waa kaas waa kan daacad ah a need politician siyaasiga loo baahan yahay is a person waa qof ama shakhsi who service kaas uu adeega u qaadimeeya for his people dadkiisa honestly si daacad ah and is loyal to them or egan daacad ay u yihiin. How was they ahead the political system of Somalia? qaabka siyaasadda Soomaaliya waa sidee si ay ahayd. How was they ahead political system of Somalia? waa qaabkii horan ka hadlaynaa sidee ahayd qaabkii hore siyaasadda Soomaaliya. There was waxay ahayd a bad political offense waa mid aad u xun waa siyaasad aad u xun ahayd among gudaha Somali faction leaders hogaam kooxdadii la soo maray siyaasadooda waxay ahayd offensive mid aad meel xun ah and even hataa they are still really warlords will waxaa sii jira wadanka qabqablayaal and they don't like ma jecla to be inaan ahaano one nation hal qaran inaan ahaano ma doonayaan warlords waxaa dhahaa qabqablayaasha dagaalka and they don't want ma ay doonayaan ayaga ma jecla to be inaan ahaano ama Soomaaliya inay ahaato one nation hal qaran isku mid inaan ahaano ma rabaan. Didn't they get McKellen Mia any benefit wax faa'iido ah by UN for intervention faragelintii UN-ka wax faa'iido McKellen Mia of peace xagga nabadda in their country wadankooda in 1993 kun saalbasa saddexdii marka la fiiriyo wax faa'iido ah faragelin ah markii soo faragelin Mareykanka McKellen Mia UN-ka no maya they iyaga didn't get ma aysan ka helin any profit wax faa'iido ah by UN intervention faragelintii UN-ka wax faa'iido ka heleen malaha. Can we make musamay karna any benevolent ways any musamay karna wax benevolent ways habab oo samafalad musamay karna of peace xagga nabadda for Somal dadka Soomaaliyeed wax nabad ah habab samafal musamay karna yes we can wa samay karna if it is needed hadii loo baahan yahay. Okay waya let us set off aan iska dhigno let us set off and habayno to discuss in ka doodno our security amaankeena and protection ilaalinta in our country wadankeena. I agree with you waan ku raacsanahay yiri saaxiibkiis wuxuu yiri I agree with you waan ku raacsanahay but like a first warranty we have to set aside waa inaan dhinac iska dhignaa all dhammaan our personal bad feelings dabeecadeen xunka ah ama dareemadeen xunka ah oo shakhsi ahaanteena inaan meel iska dhigno waa. Somalian slogan says hal ku dhig Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay nation and tribe cannot live single house together. Nation qaran and tribe iyo qabiilba cannot live kuma noolaan karaan single house guri keliya together si jir ah nin qaran wada nin wuxuu wada qabiil hal meel ma noolaan karo runtii labada isbaabinayaan marka waa ka nation qaran and tribe iyo qabiilba cannot live kuma noolaan karaan single house guri isku mid ah together si jir ah guri keliya ma ku noolaan karaan. What about Balkawaran, this federal government of Somalia? Dawladda federaalka Soomaaliya hadda socota ka waran. In fact, xaqiiqadii this government dawladani is much better than before. Wax badan ay ka fiican tahay kuwii hore. They can preside waxay nagu hagayaan the whole country wadanka dhan Soomaaliya honestly si daacad ay ku hagayaan and peace is nabad. I can say waxaan dhihi karaa they are good leaders waa hogaamiyaal fiican. Thank you mahadsanid you are welcome. Adam mudan